kulan wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee gudaha Soomaaliya ka dhacay sanada 2019 aanu ku bilownay labadii bishii January sanada 2019 dowladda Soomaaliya ayaa ku amartay wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysom inuu si degdeg ah wadanka uga baxo kadib markii uu faragelin ku sameeyay rabshadihii ka dhacay magaalada Baydhabo 8 bishii January sanada 2019 baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland ayaa madaxweyne u doortay Siciid Cabdullaahi Dani waana doorasho 5 sano mar ka qabsoonta Puntland waxaana lagu doortaa hogaanka sare ee maamulkaasi 15 bishii January 2019 waxaa dalka Canada ku geeriyootay Allah u naxariistay fanaanadii caanka ahayd ee Khadiija Cabdullaahi Dalays oo ka mid ahayd fanaaniintii hobolada qaranka Soomaaliyeed ee Waabari 26 bishii January sanada 2019 madaxweynaha Soomaaliya ee madaxda dowlad goboleedyada iyo sidoo kale axsaabta siyaasadeed ayaa waxay ka qayb galeen caleemasaarkii loo sameeyay madaxweynaha maamulka Puntland 15 January 2019 kooxda Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday Hotel Duzi 2 oo ku yaala magaalada Nairobi halkaas oo ay sheegeen inay ku dileen 47 qof inkastoo dowladda Kenya ay sheegtay in lagu dilo weerarkaasi 21 ruux weerarkaasi dadka ku dhintay waxa ka mid ahaa 2 wiil oo walaalo ah oo Soomaali ah 4 bishii February 2019 kooxda Al-Shabaab ayaa magaalada Boosaaso waxay ku dileen madaxii shirkadda DB World ee dekada Boosaaso saacado kadibna waxaa isbitaalka ku geeriyooday ninkii toogtay oo ku dhaawacmay rasaas ay ciidamada ku fureen 23 February 2019 dablay ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa magaalada Muqdisho waxay ku dileen Allah u naxariistay xildhibaan Cismaan Cilmi Boqorre xilli uu ku sugnaa degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir xildhibaan Boqorre ayaa muddo dheer ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya wuxuuna mar soo noqday gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka 15 May 2019 waxaa magaalada Garowe ka dhacay shirkii madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale dowladda dhexe ee Soomaaliya shirkaas oo ugu dambeyn ku soo dhamaaday is-afgaranwaa kadibna lagu soo kala dareeray 30 May 2019 qaramada midoobay ayaa James Iswan oo ah diblomaasi u dhashay dalka Mareykanka waxay u magacaawday safiirka cusub ee Soomaaliya kadib ceerintii Nicholas Haysom 28 May 2019 maamul goboleedka Puntland ayaa joojiyay wada shaqeyntii kala dhaxaysay dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya kadib markii lagu heshiin waayay shirkii magaalada Garowe ay isugu yimaadeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka 24 bishii Juun 2019 madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa aqbalay in doorasho laga qabto Galmudug isagoo dhanka kalena meesha ka saaray heshiiskii Galmudug iyo Ahlu Sunna ay ku midoobeen ee ka dhacay dalka Jabuuti 12 bishii Julaay 2019 kooxda Al-Shabaab ayaa weerar culus ku qaaday Hotel Madiina ee magaalada Kismaayo halkaas oo ay ku dileen 26 ruux oo u badnaa dad shacab ah dadkii weerarkaasi lagu dilay ayaa waxaa ka mid ahayd Hodan Naaleeye oo ahayd gabar wariye ah iyo seegeeda 18 bishii Julaay 2019 Allah u naxariistay waxaa isbitaal ku yaala magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ku geeriyooday abwaankii weynaa ee Soomaaliyeed Maxamuud Cabdullaahi Ciise Singub 24 Julaay 2019 qarax ismiidaamin ah ayaa waxa uu ka dhacay xarunta dowladda hoose ee magaalada Muqdisho gaar ahaan goob ay ku shirayeen duqii hore ee magaalada Muqdisho iyo mas'uuliyiinta degmooyinka gobolka Banaadir 1 bishii Agoosto 2019 gudoomiyihii gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso ayaa u geeriyooday dhaawacii ka soo gaaray qaraxii ka dhacay xarunta dowladda hoose ee magaalada Muqdisho 22 bishii Agoosto 2019 baarlamaanka Jubbaland ayaa mar saddexaad madaxweyne u doortay Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe inkastoo doorashadiisu muran badan ay dhalisay 22 bishii Agoosto 2019 dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inaysan aqoonsanayn doorashooyinkii ka dhacay maamul goboleedka Jubbaland waxayna dowladda Soomaaliya ku tilmaamtay doorashadaasi is-caleemasaar baalmarsan habraaca doorashooyinka dastuurka iyo shuruucda Soomaaliya 22 bishii Agoosto 2019 golaha wasiirada Soomaaliya ayaa magacaabay 4 taliye oo kala ah taliyaha ciidanka nabad sugidda iyo sidoo kale sirdoonka oo loo magacaabay Fahad Yaasiin taliyaha ciidanka booliska oo loo magacaabay Cabdi Xasan Xijaar taliyaha ciidanka xoogga oo loo magacaabay Generaal Odawa iyo taliyaha ciidanka asluubta oo loo magacaabay Generaal Mahad Cabdiraxmaan Aadan 23 Sebtembar 2019 dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xayiraad ku soo rogtay tagida magaalada Kismaayo ee Jubbaland
soddonkii bishii Sebteembar 2019 al-shabaab ayaa weerar loo adeegsada qaraxyo ismiidaamin ah iyo weerar toos ah waxay ku qaadeen saldhigga Mareykanka ee Balidoogle. Taliska ciidanka Danab ayaa sheegay weerarkaasi inay 10 daqiiqo gudahood ay kusoo afjareen ayna dileen dhammaan raggii weerarkaasi soo qaaday. 10kii Oktoobar 2019 dowladda federaalka Soomaaliya ayaa u diiday magaalada Kismaayo inay u safraan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed. Tallaabadaasina waxay carab badan ku abuurtay xisbiyada mucaaradka dalka. 17kii bishii Oktoobar 2019 maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ayaa mar labaad waxay dib u dhigtay dhageysiga dacwadda la xiriirta muranka badda ee u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya. Warbixin qoraal ah oo ay soo saartay maxkamadda ayaa lagu sheegay in labada dhinac loo garnaqi doono 8 ilaa 12 bisha Juun ee sanadka 2020. 26 Oktoobar 2019 webiga Shabeelle ayaa fatahaad weyn waxa uu ka geystay gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Beledweyne, taasoo sababtay in kumanaan qoys ah ay guryahooda ka barakacaan. 28 Oktoobar 2019 doon ay la socdeen duqa magaalada Beledweyne iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo ku howlanaa gurmadka fatahaadaha ayaa waxay ku qallimatay biyaha, waxaana halkaasi ku geeriyootay Dahaba Axmed Xasan oo ahayd la taliyaha arrimaha haweenka madaxweynaha maamulka Hirshabeelle iyo dad kale oo doonta la socday. 7 bishii November 2019 baarlamaanka Puntland ayaa xilkii ka tuuray gudoomiyahoodii saacado kadib markii dagaal dhiig uu ku daatay uu ka dhacay xarunta baarlamaanka. 14kii bishii November 2019 baarlamaanka Puntland ayaa gudoomiye cusub u doortay Abwaan Cabdirashiid Yuusuf. 20kii bishii November 2019 Elmas Elman oo ahayd xogayihii koowaad ee safaaradda Soomaaliya ee Kenya ayaa lagu dilay iridka hore ee xerada Xalana ee magaalada Muqdisho, iyadoo ilaa iyo hadda aan la ogeyn sababta loo dilay, inkastoo taliska Amisom uu sheegay in xabad wiifta ah ay ku dhacday. 7 bisha December 2019 duufaano iyo roobab iswata ayaa ku dhuftay qaar ka mid ah deegaanada Puntland, iyagoo geystay khasaare naf iyo maalba isugu jira. 11kii December 2019 dowladda federaalka Soomaaliya iyo ahlu sunna ayaa ku heshiiyey in ahlu sunna la siiyo 20 kursi oo ka mid ah 89 kursi oo uu ka kooban yahay baarlamaanka maamulka Galmudug. 18kii bisha December 2019 aqalka Koongareeska ee dalka Mareykanka ayaa isku raacay in Soomaaliya laga cafiyo lacagihii deymaha ee Mareykanka uu ku lahaa. 21kii bishii December 2019 7 qof oo isugu jira ciidan iyo shacab ayaa ku dhintay gaari ismiidaamin ah oo lagu weeraray hotel ku yaala koonfurta magaalada Gaalkacyo oo ay ku sugnaayeen Generaal Cabdixamiid Maxamed Dirir iyo sidoo kale Generaal Cabdicasiis Cabdulaahi Qooje oo ah taliyaha ciidanka qaybta 12aad. 28kii bisha December 2019 ku dhawaad 100 qof ayaa ku dhimatay weerar ismiidaamin ah oo ka dhacay bar control oo ay ciidamadu ku lahaayeen isgoyska Ex Control Afgooye. waxa uu weerarkaasi ahaa weerarkii labaad ee ugu dhimashada badnaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho. 28kii December 2019 baarlamaanka Soomaaliya ayaa meel mariyay sharciga cusub ee doorashooyinka Soomaaliya, sharcigaasi oo wax weyn ka bedeli doona habkii ay u dhici jireen doorashooyinkii hore. 29kii December 2019 dowladda Turkiga ayaa 2 diyaaradood oo siday dhaqaatiir iyo dawooyin waxay u soo dirtay magaalada Muqdisho, iyagoo halkaasi ka qaaday 16 qof oo dhaawac aad u liita ahaa. 30kii bisha December 2019 dowladda Qatar ayaa diyaarad u soo dirtay magaalada Muqdisho, waxayna halkaasi ka qaaday 22 ruux oo dhaawac ah. 30kii bisha December 2019 hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA ayaa waxay shaacisay in qaraxii ka dhacay Ex Control Afgooye ee qorshihiisu lahaayeen dowladda shisheeye. 30kii December 2019 kooxda al-shabaab ayaa waxay sheegatay mas'uuliyadda qaraxii lagu qaaday Ex Control Afgooye, waxayna markii ugu horeysay ka tacsiyeeyeen khasaaraha shacabka ka soo gaaray. dhageystayaal, intaasi waxay ahaayeen dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadka 2019 ka dhacay gudaha Soomaaliya.